maamulka degmada Salaxley ayaa qaybo ka mid ah mucaawimadii ay xukuumaddu soo gaarsiisay degmada Salaxley u qaybiyay qaybtii saddexaad ee mucaawimadii dawladdu ay dadkaasi ugu tala gashay gudoomiyaha degmada Salaxley Ismaaciil Yuusuf Xuseen Shiine oo warbaahinta la hadlay ayaa xukuumadda iyo dhammaan cid kasta oo wax soo gaarsiisay dadka reer Salaxley ay waxyeeleeyeen roobabkii halkaasi ka da'ay uga mahad celiyay gudoomiyaha degmada Salaxley ayaa ku baaqay inaan la siyaasadeynin gurmadka loogu tala galay in la gaarsiiyo dadka uu saameynta ku yeeshay roobkii halkaasi ka da'ay gurmadkii koobaad ka soo qayb galay hay'adda wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada hay'adda barakacayaasha hay'adda kaydka raashinka iyo daafooyinka dabiiciga markaa waxay runtii soo gaarsiiyeen mucaawino aad u ballaaran maalintii koobaad waxay dhacday 4:00 galabnimo 10:00 subaxnimona way noo yimaadeen wayna soo gaarsiiyeen qaybtii ugu dambeysay ayaan imika qaybinaynay laba goor oo horna halkan ugu qaybinay aad baan uga mahad celinaynaa taakulada ay soo gaarsiiyeen waxa kale iyaguna aan u mahadnaqaynaa sariflayaasha reer Somaliland urur ay leeyihiin wada jir la yiraahdo oo isaguna 150 qoys mucaawino mug la soo gaarsiiyay waxaan u mahadnaqaynaa haween iyaguna shalayto ku qaybiyay halkan timir iyo bacaha imika ay qaybin loo kala iyo wax badan oo dadku xutayay waxaan ka rajaynaynaa insha Allah billahi karim dhammaan reer Somaliland cid kasta oo ka soo qayb gali karta taakuladaas in ay insha Allah billahi karim wixii talkooda soo gaarsiiyaan in kasta oo fariin halka marnay maalin hore maantana aan ku celinayo fariintaasi waxa weeyaan waxaad imika soo aragteen dhulkii wada dunsan marka halka cuntada iyo hoyga iyo bacaha iyo maryaha iyo waxaas ay dadku muhiimadda weyn ka siiyeen waxa iyadana ay dhex wadi doonaa insha Allah billahi karim oo dadka muxsiniinta wax la soo baxaya iyo dawladda baan ugu baaqaynaa inaynu ku darno jeengadihi iyo sawirkii iyo qoryihii insha Allah billahi karim cid ka jawaabi karaysa waxaan ugu baaqayaa waxa jiray qolo dhalinyaro ah oo shalay laga soo abaabulay magaalada Hargeysa waxay ka iibsadeen maryo ka iibsadeen magaaladan waxaan jecelahay qoladiina warbaahintu inaad la kulantaan ninkii maryaha ay ka iibsadeen Saleemaan baa la yiraahdaa nin bacad magaalada ku haysta maryahu dheeri ka iibsadeen $100 ka siisteen badna Hargeysa kala yimaadeen way qaadeen meel qarsoon oo magaalada ka dambeysay ayuu ku gubeen waxaanay warbaahinta u sheegay sida ay ku aragtay warbaahinta xalayto in alaabtii Salaxley mucaawanada hay'adda dawladdu keentay ay iyagu gubeen dadkii la siiyay ay gubeen waxaan aad ugu faraxsanahay maanta maadaama aad nagula joogtaan warbaahinta faraha badan leh inaad idinku xoogaan u noqotaan arrintaas waxay ahayd arrin been abuur ah dhalinyaro waxay ahaayeen ay soo khaldeen dad u qaatay inay goobtan oo kale ama madashan oo kale siyaasad maxaan ku dhaga samayn karayaan waxaan ugu baaqaynaa kuwa soo abaabulay dhalinyaradaas waar meel masiibo ka dhacday lama siyaasadeeyo siyaasaduna kuma jirto dadkani waxay u baahan yihiin cid wax soo tarta qofkii wax soo tara iyo kii waxba soo tari waaye maxaan ku raday ka dhib la'aada labadu way mahadsan yihiin geesta kale gudoomiye ku-xigeenka ururka horumarinta dhalinyarada degmada Salaxley ee Saydo Cabdiqaadir Cabdi Saaxil ayaa xukuumadda uga mahad celiyay mucaawimadii ay degmada Salaxley soo gaarsiisay runtii dhibaatadii ka dhacday Salaxley duufaantu ka geystay 12 bisha dhibaato baaxad lahayd dadkii reemiga xawli saameysay sidoo kale guryo badan bay dumisay inkastoo khasaare nafeed jiray haddana ay khasaarahan zeed oo hooyga ayaa jiray badan marka anagu dhalinyaro ahaan waxaan ahayn laantii ugu horeysay xogta rasmiga ah ka diyaarisay isla fiidkii masiibada dhacday sidoo kale waxaan ahayn gacantii ugu horeysay ugu dambeysay gacanta ku haysay qaybinta gurmadka ay soo gaarsiisay laamaha dawladda kala duwan ee sheegay